Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waxa waaye Hidaya Talk Show. Meel kala duwan aan kasoo sii daynaa maantana anaa nasiib u yeeshay inaan soo sii daayo. Marka ugu horeysa waxaan ka cudur daaranaynaa dhammaanteenba si walaaltinimo leh. sidii oo khaldanayd oo ma technical problemkii aan ku soo sii daynay videogii hore oo cod la'aanta ahaa. naga raali ahaada meel kasta joogtaan. dadkii nala soo xiriiray aad u mahadsantihiin. soo xiriiritaankii aad nala soo xiriirteen, soo sheegitaankii aad noo soo sheegteen. walaalaheen khayra qabtaan, ilaahay khayr iyo barwaaqo iyo bash Allah ha idin siiyo, anagana Allah noo ziyaadiyo. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ama especially aniga aan ka hadlo miraha Soomaalida ay caanka ku tahay oo lagu magacaabo mooska ama muuska oo afka qalaadna lagu dhaho Englishka banana. mooska waa miro ilaahay nagu irsaaqay oo wadankeena uu caan ku yahay oo waqtigii berisamaadka xataa beero waaweyn oon lahayn aan dibadda u dhoofin jirnay oo Soomaalita la dhoofin jiray ama Libsoma. shirkado waaweyn ayaa dibadda u dhoofin jireen waagii berisamaadkii. waa wadankeena wuxuu ilaahay ku qanimaystay oo annagana aan dhaxal awoowe aan u leenahay. marka mooska Soomaalida waa wax lagu yaqaano. waa markay cuntada cunayaan especially qadada waa inay moos cunaan. yacni gurigii aan moos laga cunaynin ama qadadii aan moos lahayn maalintaas moosba ma jiraba. yacni qadadana waxaa waaye qada aan micnaba lahayn. markaas wax kasoo qaadba qadadaas ma laha hadday si kasta u fiican tahay. mooska wadankeena ka baxa noocyo badan uu leeyahay, noocyo kala duwanaa jiraan. intii aniga garaadkayga ah ama aan aqaano ama aan arkay waxaa waaye mooskan dhaadheer oo cuntada qadada aan ku cunno asaga naftirkiisa oo laba nooc u kala baxo. mid oo la dhaho dhibca leh, dhibcalow ama abunuqda la dhihi jiray. midka kalena waa iska liishos ahay. asagana dhadhankooda wax yaray ku kala duwan yihiin. waxaa u malaysaa fructose inuu ku badan yahay, sokorta macaanka inuu ku badan tahay dhibcalowga midka la dhahay oo markuu bislaado dhibicda yeelanayo kaasaa macaanka uu ku badan yahay. ka kalena waa isna sidoo kale waa macaan yahay laakiin waa kala sii macaan yihiin aan ka wadaa. mooska labaad waxaa waaye moos oo aan cuntada lagu cuni jirin oo yacni marka la faakahaysanayo ama telefishin la fiirsanayo ama movie yar guriga la daawanayo ama la casriyeysanayo saxan la soo saari jiray oo faakahaad ahaan loo cuni jiray, miro ahaan loo cuni jiray. mooskaasna wuxuu la ekaa farta camal uu la ekaa. moos yaryariisu ahaa oo jaala asaga dhan wada ah oo yaryariis ahoo abo talyaani la dhihi jiray. marka mooskaas yaryariiska ah Soomaalita ku dhaganaan jirtay warqad la dhahayo oo mooskii loogu talagalay dibadda in loo dhoofiyo loogu talagalay oo wadanka dibadiisa in loo dhoofiyo. badanaana I'm from Muqdisho ka imaaday. yacni markaan ka hadlayo waxaa waaye waqtigii berisamaadka dadka agekayga ama iga waaweyn si fiican ay u yaqaanaan. fardoodka iyo laga heli jiray badanaa oo lagu gadi jiray. xamarweyne markaa tagto la gadi jiray. odayaasha iyo aabayaasha iyo markay shaqada kasoo rawaxayaan iyo gacanta hor ugu soo qaadi jireen. yacni suuqaas badanaa meesha laga helayaan ka wadaa saasaan ka wadaa. moos saddexaadaa jiro oo asaga oo suuqaqa caadiga ah laga wada helayay. mooskaas yacni asaga waxaa la dhahayay moos bukeeni. dadka koonfurta ka imaaday iyo dhoobayda dadka ka imaaday iyo si fiican ay u kasaayaan. moos bukeeni la dhahay. moos bukeeni waa la kariyaa
موز بوكاني سيس ملوك عنه سيد انتي أقان أنا انتي انك كسا انك هذلويا موز بوكاني والكريا موز بوكاني مركا الكريا وعلى فيقدا على محل هاي فيقتان ككر سدح وكل قيب سماء يعني إن بهال كان كوري جالها هي لفيقايو جلدي لفيقايو سدح جلد اللي واي بأسجع أو اسكو دجن كبعد موسكي أو سدح جيس عمل أكو دحجرو موز بوكاني والكرسدا والعنا سيدا بتاتي معانكو كلوهي والكرسدا بيالو كريا أما نوعي كل دونا لو كريا أدي على العموم موسكس والكرسدا إن waxaa jirtay Soomaaliya marka oo dadka gacan moos ah iyo baaka asoo ku jiray dadka qaarkood oo dadka beeraleyda ah ama dadka ku xiran dadka beeraha leh way heli jireen marka mooskii cagaarana lagu keenayaa anaga Soomaali hadaan nahay tadawurkaas ma aan gaarsiisneen horumarkaas ma gaarsiisneen oo mooska cagaarka xataa wax lagu sameesto yani waxaan ku sameyn jirnay waxay ahayd oo maamiyaasha ay ku sameyn jireen cusba gacanta meesha ugu dambaysa cusba la marin jiray meesha laga soo gooyay geedka dan waa la dabooli jiray waa la huurin jiray dan asagiya tartiib kuugu soo go'aayo oo maalin walba markii la qadeenayo ma bislaada soo fiiri allaha waa soo fiirna waa laga soo qaadaa waa la cunaa cuntada lagu cunayaa kaas waxa waaye mooska oo cagaaran marka guriga la keeno laakiin markuu dagaaladii dhaceen dadkii Soomaalidii dibadda u soo wada baxeen dhaqanno kala duwan aan la kulannay oo xadaarad aan Soomaalidii heshay oo dad qowmiyado kale aan la dhaqannay ama aan daris la noqonnay ama ilmahani ay la saaxiibeen ama isdhexgal dhaqan uu dhacay waxaan baranay mooska cagaaran naftirkiisa in oo yacni wax laga samaysto موسكس عقارن وحلقة سميسانايو والا فيقتانكيسو وأذيقي جرجريتانكيسو وأذيقي والا جرجرا دن سيدي او فرنج فرايس كالو سميو كالبطاتي مركا سليد لغشيلا يو كالي سليد أدبك لسارتا عصبير على مرينايا والا شيلا marka la shiilo waxa soo baxay bahal oo wadamada North America iyo Canada iyo Mareykan iyo dadka joogan waa yaqaanaan Superstore iyo Walmart iyo marka la joogo waa la arkayaa moos oo yani dadka ay gadanayaan oo already waa la soo sameeyay oo qaleelkaas lagu soo shiilay yani sida adoo chips cunay sidoo kale waaye oo ama loos adoo cunay sidoo kale saas camal loo cunaa noocaas oo markuu cagaaran yahay waa la shiilaa anaga lagtaas markii hore Soomaalida badanaa ma ay aqoonin waa ani inta aragtidayda ahayd waa laga yaabaa inay yaqaanaan laakiin ani la kulmay aan arkay aniga aragtidayda intaas ay ku egtahay ma aan arkin Soomaali intaan joogay aba yaraaday laakiin ma aan arkin maxaa la dhahaa moos la shiilaayo oo saliid lagu shiilaayo dab intii la saaro waxa kale oo aan markaan dibadaha u soo baxnay aan baranay waxa waaye mooska markuu uu bujujuqo oo uu yani uu bislaado oo wax la gato dukaamanka oo suuqaqa ay la waayo maxaa la dhahaayay waa urkiisa ku soo gali jiray marka maraysid suuqa meesha oo lagu gada banaanaha iyo markaa maraysa casarkii iyo maaris markay tahay oo kuleelka ay Soomaaliya xamar ay tahay iyo waxa arkaysaa urkii oo ku soo galay yani ma aan aqoonin mooska markuu uu bislaado wax laga sameeyo hadda laakiin markaan dibadahan iyo waxaan imaanay waan baranay mooska markuu uu bisayl noqdo oo la cuni karin waxa laga sameeyo waan baranay sida banana bread oo kale laga sameystaa banana bread kaas laga sameeyaa soo hadda waan baranay oo mooska haduu cagaar yahay waa cuni karnaa hadii oo majujuq u noqdo waa cuni karnaa haduu caadi yahay sida cuni jirnaa waa cuni karnaa mar la ilaaho manigay sidoo Soomaaliyan taaganahay hadda mooska faa'iidooyinkiisa waa badan yihiin faa'iidooyin oo nimanka ay ka helaan jira oo iyaga u gaar ah oo insha Allah markan aan ka soo hadli doono iyo faa'iidooyin ay dumarka kaliya ka helaan jiro oo iyagana u gaar ah oo aan ka hadli doono faa'iidooyin ilmaha yar yar babyyaasha ah ay ka helaan jiro oo insha Allah waan u gudagali doonaa waan ka hadli doonaa totalka ilmaha oo yani oo 4 jirada iyo 3 jirada ay faa'iidooyin kale ka helaan weight loss
exercise-ga lagu sameeyaa oo weight-ka la isku dhimaa skin-ku u roon yahay maqaarku u roon yahay timuhu u roon yahay mooska waxyaalo badan u fiican yahay waxyaalaha aan ka helno mooska oo anaga aan faa'iidooyinka aan ka helno waxa waaye potassium maadada potassiumka la dhaho waa ka helnaa waxaan ka helnaa vitamin C aan ka helnaa banaanaha waxaa kaloo ka helaynaa catechin maada la dhahan ka helnaa healthy nutrients oo kala duwan aan ka helnaa waxaa halkii banaana waxaa ku jira 10% oo ah high in fiber ku jiro kaas oo regular ka dhigta yani kiimikada oo gudaheena ku jirtay regular gareysaa vitamin B laga helaa wuxuu xataa hoos u dhigaa blood pressure-ka uu hoos u dhigaa insha Allah bidmillahi kariim sida waa sii wadaynaa yani mirahan ilaahayna siiyey oo wadankeeni uu caanka ku yahay aan insha Allah bidmillahi kariim hal u dul istaagi doonaa barnaamijkeena waa noo bilowday muddo ayaan idinka maqnayn oo yani danooyin kala duwan aan ku maqnayn insha Allah bidmillahi kariim ماما منى هداية سهرة سراد إن شاء الله وأكتينا كيلي دونتان لايف نو ينكسو قلي دونا خاطيرة نقل قيب قادم دونتا إن شاء الله بإذن الله كريم كوا كتخصصي علمي نفساني نو إيمان دونا وحنو إيمان دونا كلا dhakhaatiir haweenka ah dhakhaatiir oo internal medicine ah noo imaan doonaan dhakhaatiirta maskaxda noo imaan doonta any dhakhtar uu noo imaan doonaa waana su'aalana waa soo weydiin kartaan meesha kala xiriiraysaana waxa waaye maama Muna Hidaaya Sahara Siraad insha Allah bidmillahi kariim anigana halkaana hadda aan ku ekeynayaa wixii intaa ka sii faahfaahsan waan comments-ka hoos noogu soo qori kartaan insha Allah waa is arageena dambe assalaamu calaykum